dadkii ka howlgalay ama dibadda ha jiraan ama dalka ha joogaan isbitaalkii laga dhisay xagar ee ka qayb qaatay lacagtii aruuriyey mahad baan soo jeedinayaa waa u duceynayaa khayr Allah ha siiyo awlaad Allah u barakeeyo ayaga caafimaad Allah ha siiyo waan ku faraxnay waan ku raysanay isbitaalkaas waxa kaloo daba yaala eel ayaa la qodaa leeyahay xagar eelka xagar la qodayna waa dhib badan yahay dadka abaabulay ama dibadda ha joogaan ama dalka ha joogaan ayagan mahad baan soo jeedinayaa mahadaas kadib dalka magaalo kasta ama dal kasta dadka leh ayaa dhista maalgeliya ku rafaada ku silca mirihii ay keenaan dib loo ka gurta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay shirkan meeshan taagan oo maanta loo fadhiya odayaasha dhalinyarada waxgaradka kulli fadhiyaan ayagana aad baan u mahad u celinayaa intaas kadib Allah idinku guuleeyo Allah idinku nabad yeelo ku guuleysta eelka bii ka gaara hoosh ku guuleysta Allah ka dhigo isbitaalkii laga dhisay degmada xagar dadkii isbitaalka dhisay maalkooda ku bixiyay juhdi iyo dadaal ku bixiyay waqtigooda ku bixiyay aad ayaan ugu mahad celinaynaa kadib waanu u duceynaynaa meeshay ka soo bixiyeen hantidaasi iyo maalkaasi in ilaahay u barakeeyo wax badal khayr qab ilaahay ugu bedelo awlaadooda ugu barakeeyo maxaa la dhihi jiray kadib waxaan u hambaleynaynaa hadda oon hambali u jeedinayaa cayalbiyoodka laga hirgelinayo degmada xagar hadda lagu jiro hawshiisa hirgashay ummadda ku hool jirtay u dhalatay degmadaasi meel walba way joogaan guddiga jooga hadda nala jooga kuwa naga maqan ee dibadda jira inta ayada waan u hambaleynayaa hambaliyaan leenahay waan soo dhaweynaynaa inta ka maqan ee u dhalatay degmada xagarna waxaan leenahay ka qayb qaata ceelkaasi waa muhiim degmadaasi muddo intay jirtay waxay ahayd meel biyo la'aan ah degmooyinka kale ee iyada daris kale ah biyay leeyihiin waxaan leenahay degmadaasi iyo ceelkaasi inta u dhaqaaqday allaha barakeeyo waana soo koobayaa warkayga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mashruucan wuxuu ku saabsan yahay kii hore xagar oo ayaantii ay odayaasha isugu imaadeen oo nabadoonnadii iyo ugaasadii ay isugu imaadeen